Some of the most successful people in the world are the ones who've had the most failures. J.K. Rowling, who wrote Harry Potter, her first Harry Potter book was rejected 12 times before it was finally published. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. And dear brothers and sisters, this is Tish Adam, and this is another lesson. So we've started translating, these small short video clip where Obama delivers a speech. So I've divided the video into so many tiny bits. The first bit I've already translated. Not today, this is the second bit. And I'll read it first 3 times, and then I'm going to translate it and shed some light on the difficult words or the most important words in these tiny sentence, long sentence. It's not tiny, actually, it's a very long sentence. Let's get started. J.K. Rowling, who wrote Harry Potter, her first Harry Potter book was rejected 12 times before it was finally published. Wrote, write, rejected, reject, publish, published, publish. I write books. I wrote a book. I was rejected. Rejection is painful. My book was published. Actually, this speech, the sentence, the very long sentence that Obama, in his speech, it was, started from here up to here. So it's one long sentence. So I'm going to read these 3 times. So be with me. J.K. Rowling, who wrote Harry Potter, her first Harry Potter book was rejected 12 times before it was finally published. J.K. Rowling, who wrote Harry Potter, her first Harry Potter book was rejected 12 times before it was finally published. J.K. Rowling, who wrote Harry Potter, her first Harry Potter book was rejected 12 times before it was finally published. أرضاء شرفت بدن صور هذا مع الآدن and video clip ير أوباما ولا هاي سو خطبة شيدنا أيان سو قاتي مركا إسقاطن حنقول هذا وحن شغله استينا and جملة البردار والسمية إن فيديو كسمية ده تنان ترجمه and وحي فايدة أنا حنقول هذا يعني كوبيانية أما كعادية مركا قيبتها هراء والسمية and حنقول هذا وكا قفكي دوني قيبتها رنو داود هالكا بتكون فنسا وكا هالكاس كل فو دتنا سو داو كاس دتنا كانوا كالي مركا اللهم صل على سيدنا محمد أم بلونه ساد أركيسان سدح علي أيان عسان كدقة wrote rejected published wrote rejected or rejected published سدح ذا verbs ويا أما فعل ويا مهمة وسدح ذا فعل ومهم سن هالكن جملة دار ودن وحيكون مارسانيان أما يكا محاكو هذا يكون دلوريجيان سدح ذا verb مركب فعل ذا مهم فعل ذا بمهمين وحلقة هلا يودن هالفعل بقى لقى أما الله أما سدح فعلين يحنبر سنين تكلا قرحين وياه مركا أنه سدح ذا دول مرة wrote وحكتمي write قرد وياه تصالير مكسينية I write books أنو حنقرأ بوغك بنقرأ أنو حنقرأ بوغك I write books وحد كلارن كرتا وان 10 رقصو دغني هذا محا فيديو كوريس 10 داونسو فضل 10 هور سو داو الى كوبان كبلاوي هذا الى 16 مرنيا marka 10 soo dhan waxa ku soo dhiganay waxyaabo aan soo dhiganay waa jira hadda ka caawinaya write hadan present continuous tense oo kala dan ka dhigo horanaya I'm writing a book I am writing a book marka iyada waa la baabina ay jibal raacnaya horan ku soo dhiganay I'm writing a book waxa weey book ayaan qoraya I write books waxa weeye waxaan anigu qoraa buugag baan qoraa qofka haduu qoraa yahay oo kale jumladan ay isticmaali karaa laakiin hadaan waliga book qorin I write books xogaa sax ma haya wrote marka tan waa base formka weeye and marka ficilada 10 ku dhigan doona insha Allah wuxuu leeyahay baabiyada Englishka wuxuu leeyahay base form bay leeyihiin simple past bay leeyihiin waxa kale leeyahay past participle marka simple past waxa ficil tagay weeye reject
rejected ما فعل تجوي publish marka ed marka la raaciyo ficil tagaway tan laakiin ed ma qaadanayso caadi wax kale qaadatay irregular verbs baa la yiraahdaa iyana wan dhigan doon hadoo la yiraahdo wrote marka doonaysa tirada I write books anu waxaan qoraa buugag doonaysa tirada anu waxaan qoray buugag ama waxaan anu qoray book waxa doonaysa I tan beddelaysa I wrote a book hadda raacayso hal book baan qoray I wrote a book anu waxaan qoray book baan qoray weeye anu waxaan qoray book baa laga yaabaa 2 sano ka hor aad qortay dadana waxaad oranaysaa waxaad isticmaalaysaa simple past ka ama ficilka tagay ee isticmaalaysaa waxaad oranaysaa I wrote a book waxaan qoray book reject aniga reject waxa weeye diidmo weeye waa diidmo bil carabiya waa rafd waa diidmo marka diidmada xoogaa wax macaan maaha qofka aad buu dhibsanayaa laakiin nolosha ka mid tahay qofka in mar lagu diido oo mar labaad lagu diido in lagu dafiro in lagu diido in maxaan ku raadayay maya lagu yiraahdo nolosha ka mid tahay qofka waxa laga doonayo nolosha inuu fahmo marka mar walba maaha hada socon mayso mar waa lagu diidaya wali mar badan baa laga lagu diido inaad dhabar adeeg la timaado aad adkaysato ay nolosha ku macaan tahay iska bar reject diidmo way rejected la diiday marka ficil tagay way tan ed baa raacnaya marka verbiyada ed gal raaciyo waxa la yiraahdaa regular verbs waa la yiraahdaa qaacidooyin bay leeyihiin iyagu ed baa raacnaya marka regular verbs na wan dhigan doon hadoo la yiraahdo rejected waa ficil tagay publish marka reject diidmo way write na qoraal way publish daabicid way buuga marka la daawacayo publish base form-ka ed marka la raaciyo simple past ka ficil tagay way publish daabicid ama la daabac ama la diiday ama la qoray marka jumladooyin baa halka ka sameeyay saddexdoodaba I write books anu waxaan qoraa buugag I write books hadda doon waxaad oran kartaa I'm writing a book ama I'm writing books buugag ayaan qoraya I wrote a book anu waxaan qoray book ayaan qoray anu waxaan qoray book I was rejected waa la diiday maya ayaa la yiri weeye mararka qaarkood waxa dhici karta kaba soo qaad qof baad guur iyo wax mustaqbal ka doonaysay dadana qoftii way ku diiday ama qofkii wuu ku diiday maya ayuu ku yiri dadana maxaad oranaysaa I was rejected waa la diiday marka kelmadda qofka inuu yiraahdo xogaa way raadagtay markuu cabanayo kala iska calaacalayo maxaan ku raadayay ayuu saan oranaya shaqo tagaysa shaqadii waa lagu soo diiday waxa la oranaya war naga tag shaqo ku sinmayna marka soo oranaysa I was rejected waa la diiday maya ayaa la yiri rejection is painful asaman ku qoraysa rejection is painful diidmadu markii lagu diido is painful wax xanuun badantay wax macaan ma qofka maskaxdiisa ma dhageyso markii la diido rejection is painful diidmadu oo qofka in la diidaa oo maya la yiraahdo is painful wax xanuun badantay pain xanuun weeye painful xanuun badan weeye painful xanuun badan weeye marka xanuun iyo xanuun badan fulta marka la raayo xanuun badan noqonaysa my book was published buugayga was published waa la daabacay my book was published marka inta maxaa ku inaad fahanteen ma umaleynaya saddexda verb wrote rejected publish wrote la qoray rejected la diiday published la daawacay marka base formyaduna waxa weeye asalkooda write reject iyo publish Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amoon mahay J.K. Rowling gabadha J.K. Rowling la yiraahdo waa gabadh caana waa qoraayad waxay qortaa maxaan ku qoraa weyn weeye waxay qortaa the Harry Potter series buugtan Harry Potter la yiraahdo oo taxanayaasha waa buug far badan ayay qortay waa gabadh Ingiriisiyada wadanka Ingiriiska ay u dhalatay marka taariikh dheer bay leedahay taariikhda marka la ka sheegin doono hadoo la yiraahdo marka buuga ugu horeeyay qortay 12 jeer qolada wax daawacda 12 jeer ay diideen way reject gareeyeen ma ay yiraahdeen 12 jeer iyana may quusan ismay diibin mar laba way geeysaa 12 jeer markii la diiday ayaa uu dhameeyay maxaan ku raadayay la aqbalay oo buugayga la daawacay deetana waxay noqotay caan aad bay caan u noqotay buugteeda waa la iibsaday maliyooneerad bay noqotay aad u taajira adduunka caan bay ka tahay waa qoraayaasha adduunka maxaa ugu caansan bay ka mid tahay kuwa ugu caansan ayay ka mid tahay marka gabadha maxaan ku raadayay gabar la furayay ahayd gurigeed joogtay ilmo yar bay haysatay maxaan ku raadayay nolosha aad u adkeyd dawladda wax yarsan jirtay marka
qof nolosha ka dhacay bay ahayd marka laakiin may quusan buugii bay qori jirtay buugii Harry Potter ka ugu horeeya markay qortay 12 jeer markii la diiday baa la daabacay dadana caan bay noqotay malaayiin buug ayay daabacday marka noloshii adkeyd way ka baxday marka qofka inuu isdhiibo ma aha mar walba isku day mar walba maxaan ku dhahdaa ay ku bixi aad guuleysan ayay gabadha ay Obama ka sheekeynaya Obama wuxuu ka sheekeynaya failure oo cashir ka ku dhiganay guul daradu ma aha maxaan ku dhahdaa markaad guul darayso inaad isdhiibto ma aha guul darooyin fara badan waxa xigi doona guul ay xigi doonta marka inaad isdhiibto ma hayaan aqrino J.K. Rowling gabadha who wrote who حوية تاسو بالعربية والتي مركا هو معنى بدن بلا هذا حوية هذا والتي أما تاسو who wrote Harry Potter تاسو قرتي بوجكت هاري بوتر تحناياش هاري بوتر لا يراد قرتي first Harry Potter book تحنا بوجي يقولي هاري بوتر يقولي first يقولي first Harry Potter book هاري بوتر book يقولي إيه قرتي was rejected وحل الديدي 12 times لبي 12 ريال الديدي before it was finally published before كهر انتان وقدمينتي aan la daabicin intaan ugu dambeyntii la daabicin imsa jirada la soo diiday 12 jeer dadana markaas la aqbalay kii hore marka dibka ay u martay kan labaad waa la soo raadsaday wal iyada la bariyay marka aan bay noqotay buugteedii maxaan ku dhahay meel bay tageen faqriga dibkina way kaga baxday buugta ay qortay J.K. Rowling marka huudan macnaheedu yarfuudban oo macnaha aan ahayn ka sheegaya qof baa doonaysa inaad albaabka la soo garaacay marka xudunaysa inaad tirado waa ayo who are you ayaa tahay who are you telefoon baa lagu soo garaacay lagu yiri assalaamu alaykum how are you doing xudunaysa who are you ayaa tahay kuma tahay isku ka sheeg way who are you marka macnaheedu fudayn ka sheegay who are you waxa weeye kuma tahay way J.K. Rowling who wrote taasoo qortay Harry Potter buugta taxanayaasha Harry Potter la yiraahdo qortay her first Harry Potter book buugii ugu horeeyay Harry Potter was rejected waxa la diiday 12 times 12 jeer ayaa la diiday before it was finally published ka hor ugu dambeyntii intaan la daabicin finally waa ugu dambeyn before waa ka hor before it was finally published ka hor intaan la daabicin 12 jeer ayaa la diiday marka halka maad ka baranaysaa ha isdiibin guul darro hadana guul darrooyinka faraha badan waxa ku xigi doona guul ay ku xigi doonta marka guul walbaba waxa ka horeeya guul darro ka horeysa J.K. Rowling gabadha J.K. Rowling who wrote Harry Potter taasoo qortay taxanayaasha Harry Potter la yiraahdo her first Harry Potter book buugga Harry Potter ugu horeeyay was rejected waxa la diiday 12 times 12 jeer before it was finally published ka hor intaan la daabicin published or daabicid wrote write rejected reject published publish I write books I wrote a book I was rejected rejection is painful my book was published J.K. Rowling who wrote Harry Potter her first Harry Potter book was rejected 12 times before it was finally published. J.K. Rowling, who wrote Harry Potter, her first Harry Potter book, was rejected 12 times before it was finally published. J.K. Rowling, who wrote Harry Potter, her first Harry Potter book was rejected 12 times before it was finally published. Wrote, write, rejected, reject, published, publish. I write books. I wrote a book. I was rejected. Rejection is painful. My book was published. Dear students, thank you very much for listening and watching the video. Please share it with other brothers and sisters who might be interested in learning English. So please, if you're watching this video or you've watched this video, please watch the other video, the second video in a series. I took a small video clip and I just, I cut it into so many small pieces. This is the second piece. So if you want to watch the first piece, it is there again. With that, I leave you with Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bye bye.